mid baan ku wargelinayaa ergada waxaan leeyahay horta urgiga ka weyn labadan reer 1000 sanadood in ka badan intii Ilaahay abuurayba waa ay wada deganaayeen waa ay wada dhaqmayeen way isqaban jireen way isdili jireen sidan oo kale xaajadu ma ahaan jirin dhibkani wuxuu ka bilaabmaa uu ku dhamaadaa dhinacna uusan u dhaafsiisnayn maamulka xooga ku haysta deegaanka dhulbahante qaybaha kamid maamulka Somaliland yaa fidnada lahaa shirqoolkeeda lahaa hurinteeda leh sida ay kuwii wax ka qaban lahaa xaajada uga xidhayaan ay isu leeyihiin hadilaan ay isdilaan intii kale celin lahaydna waa ka xiran tahay saasa ka dhaba saasa ka aqliya saasa ay moodeen door inay adduunkana u sheegaan hubkana isugu dhiibaan yiraahdaan annaga nabadgeliyo u wadna dhinacna hubka isaga dhiibaan dhinacna qolo walba yiraahdaan qoladii kale halkaas ay joogtayo gaadahoodu ama ilaaladoodu halkaas ay taagneed halka haddaad ka gashaan waxa weeye waad gaadi karaysaan u sheegaya dawladaha daneeya arrimaha Soomaaliya saasan u sheegaya dhowr iyo 50 qof ee 40 maalmood intay waxa dhibaatadeeda ka dambeeyay maamulka Somaliland waxa ilaahay hadda dabkii hurinaya waa maamulka Somaliland adduunka saasan u sheegaya igad wadamada dariska ah wakiilka jimciyada quruumaha u dhaxeeya u fadhiya arrimaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya 100 jeer baan noo qabanay waxba u sheegi mayno oo waxba ka qaban weyd Soomaalida kale iyana saasan u sheegaynaa arintani ugu kuma aho meelo badan bay ka dhacday beelaha isaaq ee maamulka Somaliland leh waan u sheegayaa dhiiga daatay nafsigeeda waad heli doontaan marka aad wiilashiina iyo siyaasiyiintiina iyo dhaqaalihi adduunku bixinayay dadka yaga la isugu diro idin gafi maayo nafsigaas haddaydan ka hadlin oo aydan naga qaban oo aydan naga joojin bari baad nafsiga cuni doontaan waa dhita idin taala wabillahi tawfiiq Abdikariin Nolol Somali Channel magaalada Laascaanood waa jecelahay arintan hadalkayga ku soo koobaya waa dagaal xun oo laba daloodoo walaal ah aagan maalmahanba ka socday iyagana waxaan u rajaynayaa in aqli iyo xikmad la isticmaalo in iyakaa wada dhashay iyakaa wada dega iyagaa wixii dad isku xidhi kara oo dhiiga leh in maanta ay dhibaatadaasu jirto waxaan dambiga ugu weyn saarayaa maamulka Somaliland iyo ciidamadiisa oo dabka shidaya oo markuu xoogaa aad moodo inuu damayaba iyagoo dantooda gaaban ee maangaabnimada ka raacaya ummadda dabka isugu dhiibaya arinta aad iyo aad baan uga xumahay aad bay colaadda dadka dhulkan ku nool aagan Soomaaliya sanaag iyo cayn iyo colaadda Somaliland u dhaxaysa aad bay u sii fogeynayaan nacay baan loo baahnayn muddo badan baa dagaalkaas u socday iyo agajugleynta iyo ciidamada Somaliland tanse hadda ay wadaan waa tii farq tasud qaybi oo xukun oo waliba si ba'an oo aad moodo caaqnimo ah oo aan loo turayn dadka waxa siyaab bale ay maqaala ah halkan yiraahdo timsaaxa ama baalka magiciisa af Soomaaliga ku baalkan crocodile timsaaxa baalka wabiyada ku jiray dadka xoolaha yaxaaska la yidhi intuusan cunin ama qof ama xoolo iyo marka hore aad u ooyaa ilmo badan u shubaa iyagoo u cunayo crocodile tears baa lagu yidhaahaa af Ingiriisi Somaliland waxaan ay samaynayso ee leedahay nabad baanu wadnaa waa ina waxba kama jiraan nabad ma wadaan
iyakaa dadka dabka isugu dhiibaya hadday daacad ka yihiin war faraha dadka ha ka qaadeen dhulkoodana ha uga baxeen iyakaa heshiinaya midii isticmaalku uu samayn jiray oo walaalkaa oo Soomaaliya oo muslima uu kugu samaynayo waa wax iyana taariikh xumo ah dadkaana waxaan jeclaan lahaa inaan baaq nabadeed u jeediyo iyakaa nabadda u baahan haddaan khaatumannahayna ilaah baana baday waa dadka iyagii inaanu ka welwelno waxaanu ka hakranaynaa ma ay jirto wax badan oo markan aanu se qaban karnaa oo aan duco iyo waano iyo ilaahay laga yaabo oo sida laysu dhaamo oo taariikh xumada inagu socota alla soo afjaro waxaan ahayn ma oran karno hana laga waantoobo dagaalkaa weli taagan aad moodo meelaha uu hadda maraya baadiya la isula baxay ilaahay waxaan iyana ka rajaynayaa taash hawshaasuna inay naga soo dhammaato aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed carow waa ku salaamaya adiga dhegaystayaashaada iyo daawadayaashaada waa mahadsan tahay ramadaan kariim